qodobada daawadayaal aan idin hayo waxaa kamid ah wararkii ugu dambeeyay dagaal u dhaxeeya ciidanka dawladda iyo argagixisada al-shabaab oo ka soconaya mudug iyo qasaaro culus oo la soo gaarsiiyay al-shabaab garaad jaamac oo ku dhawaaqay balanqaad cusub oo la xiriira dagaalka laascaanood ee ay kula jiraan Soomaaliland UK oo qaaday talaabo ka dhana madaxweyne Xasan Sheekh kana joojisay safar uu ku aadi lahaa wadanka Ingiriiska maxay ku saabsan tahay xogta isbedelka ay dawladda federaalka ku sameysay canshuuraha dekedda Muqdisho iyo uljeedka arrintan ka dambaysa mar kale soo dhawaada aynu ku bilowno warar dheeraad ayaa ka soo baxaya dagaal culus oo u dhaxeeya al-shabaab iyo ciidanka dawladda oo haatan uu ka socdo duleedka koonfureed ee degmada Xarar Dheere oo ka tirsan gobolka Mudug ee bartamaha dalka dagaalka ayaa yimid kadib markii ciidamada xoogga dalka oo kaashanaya kuwa dadka deegaanka ay weerar culus ku qaadeen saldhigyo ay ku sugnaayeen al-shabaab oo ku yaala halkaas waxaana kadib xigay dagaal toos ah oo u dhaxeeya labada dhinac saraakiil u hadashay ciidamada huwanta ayaa shaaca ka qaaday in weerarka ay ku qaadeen labada deegaan oo hoos yimaada magaalo xeebeedka Xarar Dheere halkaas oo ay isku urursanayeen xubno ka tirsan kooxda al-shabaab sida ay hadalka u dhigeen sidoo kalena saraakiisha ayaa intaasi ku daray in xubnaha la weeraray ay qorsheynayeen in ay soo qaadaan weeraro balse ay ka hortageen kadib xog ay ka heleen dadka shacabka ah waxa kale saraakiishu ay sheegeen in ay howlgalladaasi qasaaro culus ku gaarsiiyeen al-shabaab isla markaana ay la wareegeen mid ka mid ah deegaanada la weeraray xaaladda ayaa haatan ah mid aad u kacsan waxaana weli la maqlayaa daryanka madaafiicda iyo rasaasta culus ee dhinacyada ay isweydaarsanayaan sidoo kalena waxaa jira dhaqdhaqaaqyo iska soo horjeeda oo laga dareemayo duleedka degmada Xarar Dheere iyada oo labada dhinacna la sheegayo in ay helayaan gurmadyo culus dhanka kale ma jiro ilaa iyo hadda wax hadal oo ka soo baxay dhinaca al-shabaab oo ku aadan dagaalkaasi oo guulaha ay ka sheegteen ciidanka xoogga dalka iyo kuwa deegaanka maalin ka hor ayay ahayd markii sidan oo kale ciidamada huwanta weerar ugu qaadeen xubno ka mid ah argagixisada al-shabaab oo ku sugnaa deegaanka Ceel Qabobe oo 30 kiiloomitir koonfur ka xiga degmada Xarar Dheere ee gobolka Mudug waxaana halkaasi lagu dilay ilaa iyo 60 xubnood dawladda Soomaaliya ayaa sidoo kale sheegtay in howlgalkaasi ay ku soo furatay hub fara badan rasaas iyo gaadiid loo waday kooxda al-shabaab koonfurta Mudug ayaa weli waxaa ka socda howlgal xoreyn ah oo ay iska kaashanayaan ciidamada dawladda Soomaaliya kuwa maamulka Galmudug iyo sidoo kale ciidanka deegaanka ama macawisleyda waxay ku soo kordhay dib ayaan idin kala soo socodsiin doonaa markana laascaanood garaad jaamac garaad cali oo ah garaadka guud ee SSC oo mar kale ka hadlaya colaadda si daba dheeraanaysa ee ka taagan magaalada laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa waxa uu balanqaad cusub u sameeyay xukuumadda Soomaaliland garaad jaamac garaad cali ayaa shaaciyay in SSC aysan ka daba tagi doonin ciidamada Soomaaliland haddii ay ka baxaan deegaanadooda kadib markii uu xukuumadda Soomaaliland ugu baaqay inay ciidamadeeda kala baxdo gobolka Sool iyo guud ahaan deegaanada SSC waxa uu yiri innaga dulmi ma geysanayno oo ka daba tagi meeno dhiigooda dooni meeno oo deegaankooda iyo dantooda in aan ka burburino ma rabno hase yeeshee riyada ah dadkan iyo dalkan idinka iska leh oo Ingiriis ayaa idin siiyay ma ahan mid aan qaadan karno ayuu yiri garaadka balanqaadkan cusub ee uu sameeyay garaad jaamac ayaa imaanaya xilli uu mar kale ku baaqay in ciidamada Soomaaliland ay ka baxaan dhulkooda inta aanay dhibaato badan dhicin oo aanay dagaalo kale oo lagu hoobta aysan dhex marin labada dhinac inkastoo weli aanay joogsan dagaalada u dhaxeeya Soomaaliland iyo SSC haddana maalmihii ugu dambeeyay furimaha hore ee dagaalka waxaa laga dareemayay dhaqdhaqaaqyo xoogan oo ay kala wadaan labada dhinac iyadoo sidoo kalena la sheegayo in Soomaaliland ay duleedka laascaanood soo buuxisay ciidamo aad u fara badan weli qodobada warkeena oo aad ka daawanaysaan kulmiye show ayaa la socotaan markana aynu eegno warar hoose oo soo baxaya ayaa sheegaya in dawladda Ingiriiska ay qaadatay talaabo ka dhana madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo la filayay in maalmaha soo socda uu safar shaqo ku gaaro London go'aan cusub oo ay haatan soo saartay dawladda Ingiriiska ayaa waxaa lagu sheegay in madaxweyne Xasan Sheekh laga saaray liiska madaxda lagu casuumay xafladda cali masaarka boqorka UK isla markaana laga joojiyay safarkii uu ku tagi lahaa wadankaasi madaxweynaha Soomaaliya oo markii hore lagu daray madaxda la casuumay kadib warqad loo soo diray ayaa hadda isbedel degdeg ah lagu sameeyay iyada oo uu soo baxay go'aan kale oo liiska looga reebay kaasoo lagu wargeliyay hoggaanka Villa Soomaaliya UK ayaa si toos ah fariinteedan ula wadaagtay dawladda federaalka waxayna u sheegtay in madaxweynaha uusan qayb ka ahayn madaxda rasmiga ah ee la marti qaaday isla markaana la bedelay liiskii hore ee casuumaadda sababta ayaa lagu sheegay inay la xiriirto dhanka socdaalka UK maadaama Soomaaliya ay ka mid tahay dalalka Ingiriiska uu saaray xayiraadda dhanka socdaalka isla markaana aysan diyaaradaha si toos ah isaga kala gooshi karin magaalooyinka Muqdisho iyo London arrintan ayaa dhalisay dood xoogan iyo hadal xoogan oo qabsaday baraha bulshada ee internetka kaasoo si weyn loogu faaqidayo waxaana dadka ay isweydiinayaan sababta ay dawladda Ingiriiska uga laabatay casuumaadii ay hore ugu fidisay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud haatan ay dib uga joojisay safarkii uu ku tagi lahaa dalkaasi ugu dambeyntiina haddii aynu eegno wasaaradda maaliyadda Soomaaliya ayaa waxay isbedel weyn ku sameysay qaar ka mid ah alaabaha laga soo dejiyay dekedda weyn ee magaalada Muqdisho iyadoo kordhisay canshuuraha sida ku cad xeer ay soo saartay wasaaradda canshuuraha ayaa la kordhiyay 100%. alaabaha wax laga bedelay waxaa ka mid ah sigaarka, shiishada, qalabka guryaha iyo xafiisyada
gawaarida raaxada, badeecadaha isqurxinta, cabitaanada, qalabka korontada iyo qalabka korontada ku shaqeeya, dharka iyo kabaha. sidoo kale saraakiil ka tirsan kastamka canshuuraha waxay sheegeen in tallaabadani aysan saameyn doonin cuntooyinka qudul daruuriga ah, saliidda, shidaalka, dawada, qalabka caafimaadka, agabka waxbarashada, warshadaha iyo gaaska cuntada lagu karsado. sidoo kalena waxay saraakiisha intaasi ku dareen in canshuurta ay qaado dowladdu aysan ahayn mid ku salaysan qiimaha alaabta. qiimaha lagu kordhiyay canshuuraha ayaa ah 100% iyada oo tusaale ahaan gaariga nooca aan xabadda karin ee jooga qiimihiisa $80,000 markii hore la canshuuri jiray $5,000 halka hadda lagu canshuuri doono $10,000 Mareykanka ah. miisaaniyadda dalka in ka badan 70% waxa uu ku tirsan yahay deeqaha caalamka, iyadoo dowladda Soomaaliya wax canshuur dhameystiran ah aysan ka qaadin ganacsiga dalka. shuruudaha deyn cafinta dalka waxaa ka mid ah in dowladdu la timaado dhaqaale kordhin iyo sidoo kale isku filnaansho miisaaniyadda ah si looga shaqeeyo mashaariic horumarineed. dhanka kaabayaasha dhaqaalaha, ilaha dhaqaalaha dowladda waxaa ugu weyn dekada iyo sidoo kale airportka Muqdisho. daawada aragtidaada qaybta hoose commentiga inoogu reeb. waxaan kaa codsanayaa muuqaalka inaad sii share gareyso warka midka xigeentan ku kulmayno. nabadgelyo. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.